kusoo dhawaada barnaamijkeeni astaan horumare stuudioga Melbourne aad uga barateen Puntland TV waa Cabdi Cilmi oo idin leh mar labaad kulanti wanaagsan barnaamijkeenan caawa waxaanu ku eegaynaa kulan ka dhacay xalay magaalada Melbourne ee dalka Australia oo ay soo qaban qaabiyeen dhammaan guddiga jaaliyadda Puntland diaspora ee magaalada Melbourne shirka waxaa looga arrinsanayay horumarka guud ee ka socda Puntland iyo sidii qayb looga noqon lahaa ugu horeyntiina waxay soo dhaweeyeen kormeerkii shaqo ee madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku mareeyay gobolada Mudug maalmihii la soo dhaafay kulankan waxaa looga tashanayay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarka ka socda dhammaan Puntland jaaliyadda Australia ee reer Melbourne ayaa waxay soo dhaweysay go'aamadii ka soo baxay shirkii wada tashiga midnimada Puntland dhanka kalena jaaliyadda Puntland ee dalkan Australia waxay ka jawaabtay baaqi madaxweynaha Puntland maalmo ka hor uu ka jeediyay magaalada Gaalkacyo kaasoo ahaa in dhammaan laga wada qayb qaato horumarka socda iyo dhismaha waxay kaloo aad u soo dhaweeyeen sanduuqii dhaqaalaha ururinta ee loo furay gobolka Mudug jaaliyaddu waxay bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa go'aankii ay qaateen reer Mudug iyo mas'uuliyiintooda ee ku aadanaa dib u dhiska iyo bilicda magaalada Gaalkacyo iyo waliba soo celintii hantidii dawladda ee dad shacab hore u haysteen ugu horeyntiina afhayeenka jaaliyadda Puntland mudane Saciid Cabdiraxmaan Shiinle ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan bismillaahi rahmaani rahiim haddaan jaaliyadii Puntland Australia nahay waxaan soo dhaweynaynaa socdaalka madaxweynaha oo ku jooga gobolka Mudug kaasoo ah mid taariikhi ah howlaha intii uu joogay oo qabsamay waa mashaariic badan oo taariikhi ah oo ka turjumaysa wax qabadka dawladda maanta madaxweyne Cabdiweli oo madaxda u yahay oo Puntland ka jirta waxayna ku salaysan tahay ballanqaadkii shalay intii doorashada dhicin oo ballan qaadayay in ay si kala horeeyeen waxayna wada tashiga Puntland hore ugu baaqay in Puntland shirar u qaban doono wada tashi la sameyn doono talada dad ka soo baxdana ay ku shaqeynto dawladda waa taas waan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa oo ammaan u soo jeedinaynaa dadkii gobolka Mudug markay dawladdu soo jeedisay in guryaha dawladda laga baxo ummadda u siman tahay dad gaar ay deganaayeen markii la soo jeediyey 22 sano guryaha deganaayeen ka baxa la yiri arrin sahlan ma ah dadkii dawladda hadalkeeda maqlay iyo reer Gaalkacyo oo guryihii dawladda ka baxay oo u hoggaansamay go'aanka dawladda ayadana waa talaabo geesinimo shacabkii sameeyay iyo maamulkii gobolka iyo dawladda Puntland taariikhi waayeen taasna aad u soo dhaweynayna waxaan kaloo aan ballanqaadka madaxweynaha ka mid ahaa laamigu ka degay tuulooyinkii Bursaarax ay ka mid ahaayeen iyo tuuladii la yiraahdo Geejaalle ilaa Galdoog ilaa dhulka u marayay waxa ahayd maalintii electionku ka ballan qaaday inuu wax u qaban doono waxaana muuqata inuu ka furay mashaariic kuwana cusubna u dhagax dhigay waa arrin maaragtay aad ugu faraxsan haddaan jaaliyadii nahnay magaalada dalka Australia taasna waxa weeye madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo shacabkiisa waan u bogaadinaynaa waan u hambalyeynaa shacabka reer Puntland waxaa oranaya dawladda aragteen oo shaqada qabanaysa horumarka qabanaysa idin heelan oo taladiina tuulo ilaa magaalo weyn idama tashanaysa kabacdi taladii aad soo jeedisaan qabanaysa waxaan qabaa in ay tahay dawlad maaha maantay meeshii laga ballan qaadan gaarsiin karta marka waxaan codsanayaa waxaa la yidhi haddaan maaragtay inkastoo nin geesiya ragga u geed adag yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo dawladda kaligeed waxma qaban karto waa inaad wax la qabataan waa inaad nabadgelyo kala shaqaysaan waa inaad horumar kala shaqaysaan haddaan diyaasbada nahana wixii aan qaban jirnay waan labalaabaynaa waan qabanaynaa haddana diyaar baan inahnay guulaysan oranaya
sidoo kalena goobta waxaa ka hadlay Axmed Maxamed Warsame oo aqoon-yahan ka soo jeeda reer Puntland ahna gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Puntland diaspora ee dalkan Australia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. horta marka ugu horeysa anagu hadaan nahay diaspora jaaliyadda Puntland ee Melbourne waxaan si niyad leh u soo dhaweynaynaa socda guurihii laga gaaray socdaalka madaxweyne Cabdiweli uu ku joogo gobolka Mudug uu ku joogo. runtii wuxuu noqday socdaal miro dhal noqday oo wax badan ay ka soo baxeen. waxa weeye waxaanu marka anagu ka jawaabaynaa oo aanu ayadaadeeda caaw ku salaysan tahay baaqi madaxweynaha oo u baaqayay diasporaha reer Puntland inay noqdaan dad ay noqdaan kuwa dadkooda u shaqeeya aan ka soo doonan jagooyin kaliya ee noqda kuwa ka qayb gala wadankooda oo mid walba waxa uu yaqaan ama xirfadda uu yaqaan ama dhaqaale ama si kasta uga soo qayb galtaasaan soo dhaweyntaas ayaanu anagu ka jawaabaynaa. waxaan kaloo ka jawaabaynaa mashruucii wanaagsan oo madaxweynuhu furay sanduuqa horumarinta gobolka Mudug oo uu ku dhawaaqay. runtii asaguna waxa weeye wax weyn oo lagu farxo weyn. gobolka Mudug waa gobol muhiim ka ah Soomaaliya. la socota magaalada Gaalkacyo waa magaalo meel istiraatiijig ah uga taal Soomaaliya. waxa muhiim ah oo aan aad ugu farxnay sida shacabku u soo dhaweeyay dib u habaynta wadooyinka iyo dhismayaasha iyo sida ay dawladda gacan ugu siiyeen inay gacanta dawladda ku soo noqoto. waxa kaloo kama intii faa'iido lagu qabay meeshii la dumiyaba jid intaas leeg markuu sameysmo mise ganacsi baa ka soo baxaya meeshii la waxeeyay. marka waxa weeye sidaas ay ku salaysan tahay anaga caaway runtii waan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanaa. waxaana qabaa inay ku dayasho u noqoto gobolada kale ee Puntland in sidoo kale ayagana looga sameeyo oo ay ku dayasho noqoto Gaalkacyo iyo gobolka Mudug. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa booqashada madaxweynaha oo ka turjumaysa jidka weyn oo laamiga hala dhaafsiyo maamulka sidii uu meel walba uu ugu tagay oo ugu kuurgalay dadka gobolka Mudug jooga oo mid walba uu soo dhageystay dibtooda waxay tabanayaan waxay qabsanayaan. marka waxa weeye runtii waxaan qabaa inay ahayd inuu yahay oo siina ahaan doon guul weyn oo Puntland u soo hoyatay waliba Soomaaliya oo dhan xataa ku dayasho u noqon kara gobolada iyo madaxweynayaasha Soomaaliya ka jiray inay goboladooda sidaas oo kale ka sameeyaan. gudoomiyaha Puntland diaspora ee dalkan Australia Umar Maxamed Dhowlawa ayaa isaguna Puntland TV uga warbixiyay ujeedka kulankan caaw. halka waxaan caaw isugu nimi inaan mainly soo dhaweyno horumarka laga gaaray waxyaalihii ka qabsoomay gobolka Mudug intii uu joogay mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo saad la socotaanba muddo halkaa joogay si uu waxyaalo badan oo qaarna ay ka socdeen qaarna isagu uu la yimi looga qabto. ugu horeyn waxyaalaha wax ka qabtay waxaa ka mid ahaa si aad la socoteen ama dad badan ay og yihiin waxaa jiray hanti badan oo ku jirtay gacanta dadweynaha taas oo uu dadaal weyn u galay in la soo celiyo oo lagu soo celiyo dawladda isagoo u maray dariiqa isqancinta iska dhaadhicinta baahida loo qabo in xoolaha dawladdu ay leedahay laga soo wareejiyo gacanta dadweynaha oo loo soo wareejiyo gacanta dawladda si dawladdu ay u maamusho isagoo oo wadooyin badan oo xirnaa furay isagoo oo booqasho ku tagay ballaaran meelo badan oo gobolka ka mid ah oo run ahaan muhiimaha مثلا
waa wax aada loo soo dhaweyn karo markaad aragto madaxweynihii oo socdaal ku tegay meelo ka durugsan magaalada weyn la kulmay dadkii dhageystay waxay qabaan iyo dhibaatada ay qabaan ayna ka wada hadleen sidii waxa ay qabaan iyo waxa iyaga looga baahan yahay loo meel marin lahaa khasab ma aha in madaxweynuhu uu wax allaaliyo wixii baahi ah oo markaa taagan wax ka qabto laakiin dadka inuu dhagaysto waraysto maqlo dhibaatooyinka jira waxay ahayd wax aad iyo aad muhiim u ah dad badan baa la soo dhaweeyey oo localka ama guud ahaan dadku waa soo dhaweeyeen annaguna aad baanu run ahaan soo dhaweynaynaa dadaalka madaxweynuhu u galay saas la socoteen magaalada maxaa la yiraahdaa gaalkacyo waxaa jiray oo ka horeeyay taa shirar wadatashi oo laga hadlayay meeshii yani wixii la qaban lahaa reer Puntland ahaan iyo wixii mugdi ku jira sidii wax loo qaban lahaa dadkii halkaa ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa Safiya Nuur Horeey oo ah xubin firfircoon ahna ganacsato reer Puntland ee dalkan Australia iyaduna hadalkeedii waxay ku cabirtay sidan salaan ka bacdi waxaan rabnaa halkan inaan bogaadin iyo tahniyad uga dirno gobolka Mudug iyo socdaalkii uu ku tagay madaxweynaheena Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan aad rabnaa inaan halkan uga hambalyeeyno go'aankii fiicnaa iyo sharafta ay muujiyeen shacabka gobolka Mudug xilligii oo madaxweynaha go'aan ku gaaray in guriyihii lagu jiray 26 sano laga baxo oo ugu baaqayna 3 days I think 3-4 days buu qabtay inay uga baxaan guryahaas in alla intii ka baxday iyo dhammaan go'aanka fiican oo ay qaateen shacabka gobolka Mudug hambaliyaan leenahay halkaan waxaan u imaanay inaan idinku hambalyeeyno sharafta iyo guusha iyo gobonimada aad soo hoyseen waxaan filayaa inaad role model u noqon doontaan dhammaan gobolada kale ee Puntland iyo Soomaali weyn baxitaa because hadda waynu aragnaa xamar waxyaalaha ka dhacay maalin walba dhul iyo guryo iyo balaaya la isku diriraya waxaan kale oo aad ugu hambalyeynaya dawladeena Cabdiweli Maxamed Cali Gaas markuu sharaxay waxa kamid ahayd inuu gobolada ka dago inuu cadaalad sameeyo in dadkoo dhan haday tuulo degan yihiin iyo haday laami degan yihiinba oo u tagi doono soo salaamo uu ka dhabeeyay aad baan ugu faraxsanahay inuu dhammaan dadkiisa soo kormeeray soo waraystay mashaariicda socota horumarka socota hawshu say u socoto aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay shacabka reer Puntland meel kasta ay joogan 9 gobol ee reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay dawladooda garab istaagaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan dawladda hadaa maqashin waa shacabka maxayto dawladeena haday amniga inoo sugto mas'uuliyadii kor qaadato wix allaala wixii dhisma ah iyo wax allaala wixii horumarin ah iyo wixii wacyigelina intaba inaga leena ka raba hadaynu nahay shacabka reer Puntland hadii aynan dawladeena la garab istaagina dawladii kaligeed wax ma qaban karto marka insha Allah anagana ka diaspora ahaan waan ku dadaalaynaa arintaas marar horo badanna waan isku daynaa inaan garab islaan dawladeena iyo shacabka iyaga reer Puntland haddana sidii baan arintayada u wadanaynaa dhammaan meel kasta joogan reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa inaan wadankeena iyo dhulkeena dhisano dawladeena aynu garab istaagno aad iyo aad baa u mahadsantihiin bahda Puntland TV ee magaalada Melbourne Australia kulanka waxaa goob joog ahaa aqoon-yahan Xaliimo Sheekh Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadan Melbourne kana soo jeeda Puntland waxayna hadalkeeda ku bilowday sida tan iyadoo si fiican uga hadashay arrimaha socda iyo waliba mustaqbalka barnaamijkan caawa aan isugu nimid waxaan u arkaa inuu yahay mid ahmiyad gooni ah u leh ma ahan oo kaliya Puntland ee u ah Soomaaliya oo dhan sababtu waxa weeye arinta ka socota gobolka Mudug magaalada madaxdiisa waa arin aad iyo aad ugu ah important dadkeena meesha degan waana arin ka taagan ay dhibaatada ugu weyn ka taagan tahay Soomaaliya maanta waxaan marka ugu horeysa halkan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha iyo shacabka
reer gaalkacyood iyo guud ahaan mudug oo dhan sida wanaagsan oo ay u garab istaageen go-aankii ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland oo ahaa wadankeena sidii magaaladeennii aan u qurxisan lahayn ama aan u hagaajin lahayn. waxaan kaleeto hambalyo soo jeedinayaa dhammaan inta ku howlan ama shirka wada tashiga iyo howlihii ay qabteen ama go'aamada laga soo saaray in magaaladaas nidaamkii rasmiga ahaa ee dowladnimo dib loogu soo celiyo, gaar ahaan madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Cali Gaas. waxaan u soo jeedinayaa hambalyo iyo bogaadin hawshii iyo ballanqaadyadii uu u ballanqaaday dadweynaha Puntland inay sidii uu loogu talagalay uu u fulinayo. waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo micnaha ay leedahay in la wadan la nidaamsado. wadan walba horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay sida uu infrastructure-kiisa u dhisto, jidadka iyo dekadaha iyo airportadu waa waxa magaalo micnaheeda create gareeya. marka intaas aad ka baaba'san tahay magaalo ma sheegan kartid. midda anigu aan aad iyo aad ugu farxay waxa weeye horumarka ay Puntland ku tallaabsanayso waa horumar national ah, ma ahan mid gobol lagu tilmaami karo. sida aad ogtihiin marka magaalo ay leedahay jidad iyo muxuu ahaa dariiqo dadku isu gaari karo ama wax loo gaarsiin karo, caafimaadkiisu waa saxmaa, waxbarashadiisu way saxantaa sababta oo ah si degdeg ayaa meel walba wax loo gaarsiin karaa. ganacsigiisuna wuu horumaraa. ganacsigana dadka dibadaha jira ama dadka dhaqaalaha leh markay damcaan inay investment wadanka ku sameeyaan waxa la fiirinayo ugu weyn waxa weeye sidee bay macnaa aan u tegayaa, markaan tago halkee ka degayaa, qaabkee baan u wajihi karaa hawsheedii inay meeshaas iga hirgasho, shid ma leedahay oo meesha rabay ku gaari karaa, airportkii si toos ah ma uga degi karaa mise meelaan transit ku sii noqonayo ku sii wareeraya, dekada alaab ma kala degi karaa iyo wixii la mid ah. midda kaleeto oo soo raacday waxa weeye taas waa human capital, sida dadka loo dhiso ama aqoontoodii oo ay si ay wax u qabsan lahaayeen loo fahamsiiyo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay garashada ay garanayaan in dadweynuhu ahmiyadda ay leedahay arintaasu. magaalada markii hadda la jabinayay sida igu maqaalaha ama aan informationada raadiyaha iyo TV-ga iyo website-yada ka akhrisanay, dadka magaaladaas degan ee gaalkacyo way u istaageen inay wax alla go'aankii soo baxay ay garab istaagaan. waana guul garashada dadka aan isleeyahay garashadoodii way sii kobcday, dadkii way fahmayaan in wadanka muhiimadiisu aysan ahayn oo kaliya qofku inuu wax intuu qaato yar uu ku noolaado, qofna waxa uu samaystay kuma noolaan karo. dadku waxay ku nool yihiin waxa weeye sida ummaddu isu garabsanayso, sida la isugu xiran yahay, sida dadku wax u fahmayaan, sida isgaarsiintaadii iyo dhaqaalahaagii iyo nabadgelyadaada aad u dhisto. aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa dowladda ka jirta Puntlandina howl tusaale u noqon karta dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto ayay sameeyeen. waxaan Soomaaliya guud ahaan u soo jeedinayaa war arintan waa arin ku daysho u baahan oo mudane wadanka dhismihiisii hore iyo qaabkii loo dejiyay iyo town planningkii jiray dib ha loogu noqdo. guryaha dariiqyada laga dhistay waxay fool xumeeyaan in magaalooyinka, waxay dilaaneen dhaqanka. sababtu waxa weeye hadda mesela marka guryuhu ay iskor saaran yihiin oo jidadkii la dhisto oo la yiraahdo qof baa ku dhintay guri gudahaas ku jira, qaabkeeba looga bixinaya qofkaas, sidee loo caawin karaa qof emergency ay haysato oo dhibaataysan sidee loo caawinaya. marka arintaas waxay ila muuqataa arin aad iyo aad muhiim u ah dadkeena iyo dalkeena oo dhanna tusaale loo soo qaadan karo. waana u hambaliyeynayaa reer mudug iyo reer gaalkacyood gaar ahaan iyo dadkii volunteeray oo timekoodii siiyey inay ka wareegaan meelihii loo baahnaa in la baneeyo. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ugu dambeyntiina waxaa halkaa hadal ka soo jeediyey ganacsade Axmed Cabdulaahi Goobe oo isaguna ka waramay in ay tahay muhiimad in wada jir wax loo qabto, waana kan isaguna faahfaahinaya. waxaa mahad iyo ammaan iyo sharaf noo ah inaan ka soo qayb galo shirkan caawa isugu nimi
oo warbixin guud nagu siiyey guddoonka jaaliyadda iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan dadka soo qayb galay. horta mudnaan waxaa ah cabdiweli waxa uu qabtay 17 sano Puntland jirtay wax ku cusub oo qariib ayuu ku sameeyey oo ah in guryihii dawladda laga baxay dadkii iyo xabad dhiiga ku daadan oo dhibaato aysan ka dhicin taasoo mirror image u noqon karta gobolada dhammaan Puntland sida Gaalkacyo, Garowe, Boosaaso, Qardho iyo kulli inta kale oo dhan. ninna maanta kuma jiri karo guri uusan lahayn ama hanti uusan haysanin. tan labaadna sanduuqa guud aadaan usoo dhaweynayna sanduuqa mudug qof walba wuxuu awoodo waa inuu baxshaa. cirbada caruurtay Soomaalida waxay dhahdaan minshaari noqotaa marka inaan isku darsano wax ku darsano wax ku qabsana at least wax qabad aan sameyno oo ninna culays la saarin. waxbarashadii naga qaabani kartaa iskuuladii wax walba haddii Gaalkacyo laga sameeyo gobolada kale dhammaan waa laga sameyn karaa. marka taasaan kusoo gaaba hadal hore loo yiri inaan kusoo celiyo muhiim maaha. aad baa umahadsantihiin jazakumullah khayr. ugu dambeyntiina kulankan waxa uu kusoo gabagaboobay is-afgarad iyo dhiirigelin iyo ballan lagu ballamay in laga wada qayb qaato howlaha socda Puntland maanta waxayna kusoo gabagabeeyeen hadalkii caanka ahaa ee madaxweyne Gaas ee ahaa Puntland ha isku tashato. barnaamijkeennii astaan horumar ee studio-ga Melbourne waddanka Australia aad uga barateen waxaan jeclahay inaan halkaa ku dhaafo asbuuca dambe intaynu ku kulmayna barnaamijka astaan horumar waa Cabdi Cilmi oo idin leh isma dhaafno iyo noole kulanta.